waddanka Sacuudi Carabiya ayaa ka dhacday magaalada Riyaad ee xarunta dalkaasi Sacuudi Carabiya warbixin umuurtaas ku saabsan Faarax Abdi ayaa faahfaahinaya xaflad ballaaran oo ay soo agaasimeen jaaliyadda ku dhaqan waddanka Sacuudi Carabiya ee ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay ku xusayeen sanad guurada 20aad ee asaaska xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ayna ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta jaaliyadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee waddanka Sacuudi Carabiya qaybaha kala duwan ee qurba joogta ku dhaqan waddanka boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo mas'uuliyiin kale oo heer federaal ayaa ka dhacday magaalada Riyaad xafladani sida heerka saraha loo soo agaasimay ayaa waxa jaaliyadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee dalka Sacuudi Carabiya ku dhaqan kala soo qayb galay safiirka dalkeena Itoobiya u fadhiya waddanka Sacuudi Carabiya mudane Amiin Cabdiqaadir ugu horreynna waxaa munaasabadani sida meeqaamka sare loo soo agaasimay khadka taleefanka kagala qayb galay jaaliyadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ku dhaqan dalkaasi Sacuudi Carabiya madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar isagoona madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya ugu hambeliyay isla mar ahaantaana uga mahadnaqay xubnahan taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ee jaaliyadda ku dhaqan waddankaasi Sacuudi Carabiya munaasabada sanad guurada 20aad ee ay sida weyn u xusayaan waxaana ka warbixiyay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya gulaha xisbigu ka soo hooyay 10kii sano ee ugu dambeysay qorshayaasha horumarineed ee dhinacyada waxbarashada caafimaadka horumarinta kheyraadka biyaha dib u dejinta jidadka iyo buundooyinka beeraha shaqaaburka dhalinyarada iyo hooyooyinka kor u qaadida ka qaybgalka haweenka ee dhanka siyaasadda xiriirka arrimaha bulshada ee dal iyo dibadba hirgelinta barnaamijka dib u dejinta ee bulshada xoolo dhaqatada looga dhigayo xoolo dhaqata beeraley iyo sidoo kale nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka ka hana qaaday madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa qurba joogta ku booriyay inay sii xoojiyaan ka qaybgalka hawlaha horumarinta bulshada ayna noqdaan kuwa aqoon iyo xirfado casri ah ku soo kordhiya deegaankooda isla markaana ka faa'iideysta fursadaha maalgashi ee ka jira deegaanka iyo dalkaba dankiisana safiirka dalkeena Itoobiya u fadhiya waddanka Sacuudi Carabiya mudane Amiin Cabdiqaadir oo qurba joogta deegaanka Soomaalida Itoobiya kala soo qayb galay munaasabadan ayaa ka hadlay xafladani lagu maamuusay sanad guurada 20aad ee asaaska xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya isagoo ugu horreyntu safiir ku hambeliyay taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya sanad guurada 20aad ee asaaska xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya gaar ahaan taageerayaasha xisbiga ee ku dhaqan dalka boqortooyada Sacuudiga isagoona sheegay in dadaalada lagu horumarinayo bulshada deegaanka Soomaalida Itoobiya ay yihiin mid si weyn uga muuqda deegaanka horumarka ballaaran iyo xasiloonida uu deegaanku ku tallaabsadana ay tahay mid cid kasta oo jecel horumarka dalkeena Itoobiya ku dhiirigelinaysa inay ka qayb qaataan waxaan qulba joogta ku dhaqan waddanka Sacuudi Carabiya ku booriyay inay sii xoojiyaan ka qayb qaadashada horumarka deegaanka Soomaalida Itoobiya kan dalkeenaba kana faa'iideystaan fursadaha maalgashiga ee ka jira deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dalka intiisa kalaba intaas kadib ayaa waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta jaaliyadda iyo qurba joogta kale ee ka soo qayb gashay xafladani ay ku xusayaan sanad guurada 20aad ee asaaska xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya iyagoona sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin waxqabadka xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ee 10kii sano ee ugu dambeeyay iyo qorshaha u yaala xisbiga ee lagu horumarinayo bulshada deegaanka waxayna ballan qaadeen inay sii xoojinayaan taageerada weyn ee ay ku garab taagan yihiin xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya iyo xukuumadda deegaankaba qurba joogta ku dhaqan dacallada dunida ayaa si weyn u xusay sanad guurada 20aad ee asaaska xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya Sweet,